kula wacan daawadayaal warbixinteena qaybteeda labaad waxaan ku eegi doonaa qisadii jacayl ee fanaanada Yurub Genyo. Sheekadeena waxay inoo mareysay 2015 markii ay wada kulmeen fanaankii ay Soomaalida aadkay u yaqaaneen aadna u dhageysan jireen heesihiisa. Yurub Genyo waxay garoonka diyaaradaha Hargeysa ee Cigaal International ay ku soo dhaweysay qofkii ay ku iloobi lahayd dareenkii foosha xumaa iyo jacaylkii walida ku dhawaa markii ugu horeysay ee laabta geliso waxay garwaaqsatay qofkii inta nolosha ka dhiman ayna noolaa lahayd isla markaana ay heshay iyo qofkii daryeeli lahaa wayna ku qanacsanayd. Qanacsanaantaasi ay ku qanacsanayd waxaa ka garanaysaa sawirka ay wada galeen axsan ya jacayl. Soomaalida intii waagaasi social media isticmaali jirtay waxay ku qanacsanaayeen inay ka baxdo noloshii mugdiga ahayd. kadib 2015 halkaas ay ka sii jaan qaadeen jacaylkoodii. Yurub Genyo waxay waqti badan ku qaadatay Hargeysa oo ahayd hoyga fanka iyo hal abuurada fanaaniinta isla markaana caanka ku ah. Meelaha lagu caweeyo sida hoteelada iyo cafeteriada ayay imaan jireen habeenkii si ay u heesaan ama ay ku caweeyaan. Waxay wada joogaan waqti badan oo ay meelaha isla maraan. Hal mar ay Soomaalidii oo dhan ka ganaxsadeen hees ay si wada jira u soo wada qaadeen. Heestaas oo hadda viewskeedu uu marayo 2.4 milyan. sida uu weelkaaga rabo wada iyadu wal iiga dhow waxyaliyahana urkula raabine adna wada jirkiyo haka tagin wanaa. kadib fanaankii ama wiilkii codka macaanaa ay nafwadaaga wada noqdeen Yurub Genyo wadamadaas ayuu iska galay. xaggiisa ayuu heesaha jacaylka ka soo qaadayay isagoo ku cabriya dareenka uu Genyo u qabo. Yurub Genyo iyaduna kama aysan yareysan halkaas bay fariimaha jacaylkii heesaha u marin jirtay. waatay hees jacayl ay ku lahayd qaamuuska kuwii galaynu nahay. wixii qisa dhacay jacayla taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay. taariikhdu haddii qorayso qaamuuska kuwii galaynu nahay. fanaankii in badan ayuu wadamadaasi ku maqnaa. 2024 ayuu wadanka ku soo laabtay isagoo ka yimid wadamada shisheeye. wuxuuna u yimid inuu mar labaad la kulmo gabadhii uu haweenka oo idilka doortay ayna isjeclaayeen, laakiin waa ay suurageli weysay sababtoo ah wadanka waxaa ka socday dagaal la sukeeye. sababtuna waxay ahayd fanaankaasi aad ayay Soomaalinimada ugu weyneed, iyaduna Somaliland ayay ku nooleed. waa xaalad kale oo aad u xun xaqiiqdii. halkaas markii ay marayso waxaa igu soo dhacday orahdii Soomaalida oo adeegsan jirtay ee ahayd jacaylku xaasid ma waayo. jacaylkii ay Yurub weeday baan raadinaynaa waa hadal heeskii intii ka dambeysay 2018 ilaa hadda 2024 lagu jiro.